wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gondar ee dalka Itoobiya waxaana garoonka diyaaradaha magaaladaasi ugu tagay madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo xubno kale oo sarsare oo ka tirsan dowladda Itoobiya madaxweynaha oo ay weheliyaan adigiisa wadanka Eritrea Asiyaas Afwerki iyo waliba ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa u soo gudbay magaalada Bahradar ee caasimadda dowlad deegaanka Amxaarada halkaasi oo maalinta bari ah shir uga furmi doono. shirka oo ah mid saddex geesooda ayaa waxaa lagu eegi doonaa waxyaabihii ka soo baxay heshiiskii iskaashiga geeska Afrika ee bishii September sanadkan ku qabsamay magaalada Asmara ee xarunta wadanka Eritrea. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kaalin xooggan ka geysatay hagaajinta xiriirka wadamada geeska Afrika ee Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia iyo Djibouti taasi oo la doonayay in lagu baabi'iyo dhammaanba colaadda geeska Afrika ka taagneed muddo dheer.